kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii ugu horeeyey maantoo jimcaha aan idinkaga hayo wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. haddaba barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa ugu horeyn wadahadaladii loo ballansanaa maanta inay ka furmaan magaalada Masqad caasimada dalka Cumaan, kuwaasoo dhex marayay wafuudda Mareykanka iyo Iiraan. haddaba barnaamijka waxaynu ku faahfaahinaynaa sida ay wax u dhaceen. saakoo dhan baan ka shaqaynayay oo aan la socday wadahadaladaas. haddaba marka waxaa la leeyahay wadahadaladu ma ahayn kuwo foolka foola ma ahayn, macnaha inay inta Mareykanku soo baxaan halkaas soo fariistaan, qolooyinkanna halkan fariistaan Iiraaniyiinta, iyagu toos uma wada hadlaynin. ninka wasiirka arrimaha dibadda ah ee Cumaan ayaa labada dhinac waxay yiraahdeen u kala dab qaaday, qoladana meelay ku jireen, qoladana meelay ku jireen. waayahay sidee marka wadahadalku ku bilowday? wadahadalku marka wuxuu ku bilowdaa la leeyahay marka ugu horeysa wasiirka arrimaha dibadda ee Cumaan wuxuu la fariistay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi iyo wafdigii la socday. wuxuu ka dhageystay xogaha iyo wixii ay hayeen. kadib ayuu baxay, haddana wuxuu u tagay Witkoff markuu u tagay waa ergeyga Mareykanka iyo qoladii Mareykanka, iyaguna wixii u sheegay. mar labaadkii haddana wixii ayay soo qaadeen way u sheegeen, oo macnaha waxay mar labaadkii ayay kusoo laabteen wafdigii Iiraan. mar labaadkii markay soo laabteen waxoogaa caqabada ayaa dhacdaa la leeyahay. marka caqabadu waxa waayaa la leeyahay Iiraaniyiintu waxay ogaadeen nin la yiraahdo General Kober inay wafdiga Mareykanku soo kaxaysteen oo uu la joogo. General Kober waa ninka taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka, waa ninka haysta ciidanka lagu soo daadiyay badda ee Iiraan khalkhalka ku haya. marka waxay yiraahdeen annagu meeshan handadaad ma u imaaninay dheh. Iiraaniyiintii furkay turteen, waxay yidhahdeen annaga jenaraalo waa haysanaa, wixii dagaal iyo hawshiisa way noo dhiban tahay, laakiin hadda waxay yidhahdeen waa wada hadlaynaa. annagu meeshaan waxaan u imaanay si diblomaasiyada inaan u hadalno, laakiin in jenaraal lasoo wato annakana lagu cabsiiyo, annaga maxaa nahay dheen, annaka jenaraal maa ka baqaynaa. haddiise wada hadalku uu ku jiro diblomaasi iyo caskari yaaldaa, diblomaasi iyo military haddii wada hadalladu ay iskula socdaan, annagana kuwaynaa kaysanayna. laakiin saa suuragal maa. waxaa la isku dayo horta arrinka in cabaar nimankii Iiraaniyiinta ahaa laga qanciyo, la yidhaahdo war ninkay rabaan ha soo wataane daaye. Mareykanku ninkay rabaan ha soo wateen. markii labaad haddana wadahadaladii waxaa wada galay wafdigii Iiraaniyiinta iyo wasiirka arrimaha dibadda Cumaan. wasiirka arrimaha dibadda Cumaan wuu ka baxay, haddana wuxuu u tagay Mareykanka. marka waa 2 mar oo uu la kulmay wafdiga Iiraan iyo 2 mar oo uu la kulmay wafdiga Mareykanka. kadib waxaa la qaatay bareega la qaatay, oo macnaha qolo walba waxay falanqeynaysay wixii lagu wada hadlay. 2 fariimooda la isdhaafsaday, qolo walba marka qolaa ku daaban, qoladana Ayatullaahi iyo raggii wax ka sugaya, qoladana Trump iyo raggii wax ka sugaya. marka meesha horta hadda xaaladu maraysaa. marka goor dhow marka waxaa jira war soo baxay oo telefishinka Sky uu qorayo. wuxuu leeyahay telefishinka rasmiga ah ee dowladda Iiraan ayaa sheegay in wada hadalladu laga yaabo inay qaataan ciddata ayaam, macnaha dhowr maalmood oo kale inay qaataan ayaa laga yaabaa wada hadallada. marka horta wada hadalladu sidaasay marka ku socdaan, waxayna ka socdaan magaalada Masqad. marka waxaa leeyahay ma jiro wax tafaasiil dheeraada oo ku saabsan waxa la isweydaarsaday, laakiin miidiyaha Iiraan ayaa waxay sheegeen iyagoo soo xiganaya hadal saacadihii lasoo dhaafay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan uu sheegay hadalkaasoo uu ahaa in Iiraan marnaba
aysan ka tanaasuli doonin waxa iyada danteeda ah. uraniumkeena kama tanaazulayno, nuclearka nabadgelyada aan samaysanayno kama tanaazulayno, hanaankeena sawaariiqdana kama tanaazulayno. laakiin waxa aan ka wada hadli karnaa waxay tahay uraniumka sidaan u yarayn karno, sidaan ugu qancin karno caalamka iyo dalalka caalamka inaynaan hub nucleara u socon oo nabadgelyo u samaysanayo, saan ula shaqayn lahayn hay-adda atomiga adduunka. waxyaabahaas ayaan maaragtay ka wada hadlaynaa idhahdeen. marka horta wararkaasu waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee soo kordhay ee maanta ku saabsan. aad waxaa loo sugayay arrinta ku saabsan wadahadalladaas. marka hadda wadahadaladii inay sii dheeraanayaan telefishinka iiraan sheegay, saan haddaba idiin sheegay, oo dhowr maalmood oo kala qaadanayaan. laakiin waxaa la sugayaa goordhow, maraykanku waa hadal badan yihiin maaragtay warbaahintoodu, inay warar soo saaraan. trump laftirkiisu waa war badan yahay inuu kusoo qoro meesha uu mar walba wax kusoo qoro, true social a layidhahdaa, waxa isaga soo qoraa. marka waxaasoo dhan weli way soo socdaan. hadda aan duubayo wax wararoo dheeraado intaa ka badan oo kulanka ka soo baxay ma jiraan, oo halkaas ayay xaajadu maraysaa. wixii soo kordha marka waa arki doonaa oo waa la socon doonaa. waaya qodobada kale ee barnaamijka aynu kusoo gudbinayno waxaa ka mid ah masaaridii ayaa weerar waxay ku qaadeen ninka la yidhaha netanyahu. netanyahu waa tii barnaamijyadeedii shalay aan kusoo qaadanay uu lahaa waxaan ka baqayaa khatarta nooga iman karta ciidamada masaarida oo sii kobcaya. masaaridiyaa marka waxay weerar ku qaadeen netanyahu. maxay ka rabaan? maxaa kaa galay leeyihiin ciidankeena? ha weynaado ha yaraado, maxaa annaga tashwiish noogu furaysaa? oo ciidankan hadda kama baqayee mar kale ayaan ka baqayaa iyo waxa kan iyo maxaa afaarahaas ku geliyay? marka saake waxaa leeyahay aqoon-yahan ha dhihin, qof caadiya ha dhihin, dadkii masaarida oo dhan waxay ka falcelinayaan hadallada ninkaa shalay uu jeediyey ee ku saabsanaa ciidanka masaarida. haddaba telefishinka la yidhaahdo ra'yul yawm ayaa wuxuu qoray warbixin uu leeyahay masaaridu waxay weerar daran ku qaadeen netanyahu sababo la xiriiray hadal uu jeediyey oo ahaa in uu si weyn u korayo ciidanka masaarida. haddaba waxay sheegeen dadka masar in arrintaasu ay tahay arrin layn cas ah oo markaa oo ninkan xaqaa'iqa iyo waxa socda uu iska indhatirayo dadku doonayo iyo adduunka inuu kusoo leexiyo. masar ayaa doonaysa inay maaragtay ciidankeeda dhisto si ay dagaalla u abuurto. marka hawshaas iyaduna halkaas ayaan kaga gudbaynaa. marka wararkaas ayaa ugu waaweynaa ee soo kordhay. mar kale waxaan idin leeyahay asxaabay jimco wanaagsan. waxaan idin xusuusinayaa mar kale hayloobinina qisooyinka dadka aadka u xiiseeya. qiso cajiiba oo ku jirta janalkeena kale ee qisooyinka nadaara 2. laygareeya oo sheergareeya barnaamijka asxaabay. haddaad nagu cusub tahayna subscribe-ka ka iloobi youtube-ka, facebook-kana follow garay. inta aan mar kale iyo barnaamij kale ku kulmayno, nabadgelyo.